xaflad siyaasadeed loo soo agaasimay isla markaana lagu calaamad saarayay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha Cali Madaxweyne kaasi oo dhawaan lagu doortay gudaha degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa galabta si rasmi ah ugu dhacday degmada Bulaburde. xafladda calaamad saarka waxaa ka qayb galay dhalinyaro fara badan, odayaal dhaqameed, waxgarad iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Bulaburde kuwaasi oo dhammaantood muujiyay taageero iyo bogaadin ku aadan hoggaanka cusub. gudoomiyaha ururka dhalinyarada beesha Cali Madaxweyne waa u habalyeynaa gudoomiyaha xaafadda Wadajir anigoo ah waa soo dhaweyneynaa waana la shaqeyneynaa waana u habalyeynaa. xafladan waa xaflad weyn waxaana soo qaban qaabiyay xafladan dhalinyarada beesha Cali Madaxweyne ee ku dhaqan degmada Bulaburde waxayna ay ku doorteen xafladan xafladii ka horeysay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xog haye dhalinyaro oo maxaan ku iraahdaa Cali Madaxweyne runtii dhalinyarada oo la doorto Cali Madaxweyne waxa laga rabaa in Cali Madaxweyne isu keenaan in Cali Madaxweyne midnimadiisa ka shaqeeyaan annaguna waa la shaqeey doonaa haday ka shaqeey waayaanna meesha waa dhaafinaynaa kuwa Cali Madaxweyne u shaqeeya keenayna boqolkiiba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynay aadaan soo dhaweynayna si qurux badan dhalinyarada soo agaasintay oo rag iyo dumar la munaasabadan boqolkiiba waxay ku doonayeen aan la doonaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waxay rabeen oo juhdiga ku bixiyeen waqtiga geliyeen maskaxda geliyeen wax aad u fiican waaye nasri waaye noo yimiday waa soo dhaweynaynaa. markaan kaftan ku daro anu dhalinyartana waa u weynahay odayaashana waa u yara markii aan kaftan ku daro waxaan ka wadaa maahane waxaad wadiinka dhalinyaro ahaan waxaan u qaatay inay yihiin wax jiilka soo socday ka hadda taagan buu wax u taray sidaasaan garabkiina u taaganahay hadduu ilaahay yira anoo ku hadlaa afka Cali Madaxweyne odayaasha dhaqanka oo kamida beesha Cali Madaxweyne markii ugu horeyso waxa mahad mudan Ilaahay gacsa wajanahay marka labaad saa mudan mar saddexaad saa mudan waafajiyay dhalinyartaas ku soo duway fikradaas ama ajantahaas inay u istaagaan dadkooda iyo dalkooda ay maslaxadaas iyo maaragtay wanaagaas midnimadaas ay maaragtay muujiyaan xafladaas quruxda badan ee ugu agaasimeen ayaga ku mahadsan marka labaad mar saddexaad waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin mar labaad mahadsantihiin. nimanka duubka la saaray daameeye Xuseen degmadan inta joogta Calina deegta ku hayda ilaahay hadar yeelo jannada daaf ha ka geeyo ilaahay hadar yeelo jannada daaf ha ka geeyo diroogna ma fiicno dilna oon ma bannaano diinka yaana la deynin dadku yoogna duloobin doorka yaana la aadin deeqa yaana la waayn wixii daawa loo raba ducaa lala damoodaa. waxaan leeyahay wiilkan oo la doortay inuu noqdo wiil doora oo dadka isku wadi kara anagana waxaan leenahay hambalyo qaasatan waxaan salaamayaa wiilka walaalkeena oo meeshaan la doortay walaal waxaan rabnaa dalka iyo dadkaba inaad anfacdo qaasatan jifada aad ka dhalatay inaad aad kor ugu qaaddo maamulka la doorto dhalinyaradaane kuwa guulaysta oo magaalada iftiin u noqda Allah ka dhigo magaalada qas badan ka jiro daroogadu ugu horeyso duqii magaaladu waa jooga nabad sugidda iyo maamulka iyo dhalinyarada hayska ashadaano arrintaasna inuu u wada duubano dhalinyaradana aan caymino intaasaan idaga codsanayaa. gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha Cali Madaxweyne ayaa u mahadceliyay dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda asigoona ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono mideynta dhalinyarada iyo horumarka danahooda guud. dadku markuu duurka jooga wuu kaftamaha wuxuu yiraahdaa qofka markii xoogaa wax laga dhigo si gaaray gooni ugu leexataa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaa ninkii dadkiisa dalkiisa
kii wax u tara intaana waxaan rajaynaa insha allah haddii ilaahay inay garabkayga noqon doonto intaas kadib beesha aan ka dhashay oo cali madaxweyne xoogaa barnaamij ay aragtay oo culays ay maanta munaasabadda aan u samayday ayadana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo tan maanta kadib inayna nagu soo noqono maalinkii ahaad waa mahadina ay tiraaho sidaan shaqada aan u qaban doonno insha allah haddii ilaahay quruxda badanne tolkayna dadkayna rag iyo dumar culamaa u diin odayaal si weli waa la tashan doonaa insha allah waxay raalli yihiin aan ugu shaqaynaynaa wabilaahi towfiiq ugu dambeyn duqa degmada Bulaburde Cabdisalaan Xagar ayaa gunaanadkii xafladda ka jeediyay hadalla kooban asigoona la dardaarmay hogaanka cusub ee dhalinyarada beesha cali madaxweyne waxaan rabaa saaxiibka Cismaan inaan la dardaarmo Cismaan galabta waxaa loo caleemo saaray gudoomiyaha dhalinyarada beesha cali madaxweyne waxaa loo caleemo saaray dhalinyaro iyo beel deegaanadeediyo dhan shabaab u haysto waxaa loo caleemo saaray beel deegaanadeediyo dhan dadkii degan ay abaar la tacaalayaan waxaa loo caleemo saaray beel marxaladda hadda ay ku jirto iyo sanadkii tegey taariikhda aysan soo marin culayskay wajaheen iyo dhibkay wajaheen iyo midday hadda wajahayaan intaba galabta maahan in lagu sacbiyo waxay u baahan tahay in lagu duceeyo lagu yiraahdo niyahow berriba shaqadaada intaad gasho dadkan abaartu hayso ee tabaalaysan intaad samayso dhalinyaro bilow gurmad deegaanada biyuhu aysan gaarin biyo dhaamin ka bilow deegaanada cunno yaridu ka jirto u bilow dadka inaad u gurmatid adigoo kaashanaya maamulka odayaasha iyo dadka magaaladan jooga intaba qof waliba halkan yimid waa ku hambalyeynaa laakiin aniga waxaan ku leeyahay shaqo adaga ku taal sababtoo ah waxaan ogahay marxaladdan ku jirno waxaan ogahay xaaladda ku sugaysa dadka ku sugaayo dadka lagu caleema saarana waa aqaanaa shaqo adaga ku taalo galabta jaakada markii sawirka iyo caleema saar ku dhamaaday iska siib beritoole subaxii waagu markuu bariyo bilow biyo dhaaminta gurmadka aruurinta dadka isku xirnaanta adigoo kaashanaya cid walba oo is leedahay waxbay ka geysan kartaa